bismillaahi raxmaani raxiim. halkani waa kulmiye show. qodobada wararkeena subaxnimo waxaa ka mid ah dani oo xaaladda ay ku xumaatay kadib markii uu xiriirka u jiray dowladda federaalk ee Soomaaliya. sirta ka dambeysa ciidanka BSF-ta Puntland ee la geeyay Hobyo. maxaa ka jira in amarka ciidankan lagu geeyay magaaladan uu bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh? qorshaha cusub ee amniga Muqdisho. dowladda Soomaaliya oo qaabab cusub u sugaysa amniga magaalada. qodobadan ayaad warkeena ku daawan doontaan. fadlan daawada si aad wararkeena mar walba ula socotana soo follow garee muuqaalkan noo la garee oo share garee si dad badan u gaara mahadsanid. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay la kulmay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa kala tashaday xaaladda xiriirka sii xumaaday ee kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya xilli uu ku degdegay go'aankii uu dhowaan ka gaaray dowladda. Dani ayaa filayay in dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh uu soo dabci doono, balse waxa uu dareemay culays aad u weyn kadib markii dowladda dhexe aysan waxba ka soo qaadin hadalkii Dani, isla markaana howl walba oo wadajir loo qaban jiray ay socoto Puntland la'aanteed. kulanka xali ee Dani iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa ayaa looga tashanayay bal ugu yaraan tallaabada kale ee ay qaadi karaan, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu fagaare ka sheegay in dalkan uu yahay mid la isku yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda dhexena ay mas'uul ka tahay. wixii intaasi ka harana aan la aqbali doonin in masiirka ummadda ay shakhsiyaad gaar ah qaataan ama isku dayaan inay ka taliyaan. Siciid Dani ayaa la soo warinayaa in uu ka shalaysan yahay qaar ka mid ah go'aamadii uu gaaray, iyadoo wasiiradiisa qaar ay u sheegeen in degdeg uu galay maadaama ay ahayd marka hore in arrintan si wanaagsan looga wada tashado. sidoo kale wasiirada ayaa sheegay in wax walba oo dowladda dhexe laga rabay ay ku wacneed iyadoo aan go'aan la gaarin in lagala gorgortamo, balse iyadoo hadda go'aan la gaaray aysan suurtagal ahayn in dowladda gorgortan kale lala galo. laba wasiir oo Dani runta u sheegay ayaa tilmaamay in hadda aan waxba laga qaban karin, kaliyana dhanka Puntland laga doonayo inay xaaladda qaboojiso, balse dowladda federaalka aysan wax dana ka lahayn go'aanka la gaaray maadaama aanu saameyn ku yeelan. Puntland ayaa ka baqaysa in madaxweyne Xasan Sheekh carada uu ka qaaday go'aankii Dani uu ku jaro dhaqaalihii dowladda dhexe ay sii jirtay Puntland, sidoo kalena cadaadis siyaasadeed lagu saaro Dani iyo maamulkiisa. waxaa suuragal ah in xubno badan oo mucaarad ku ah Dani ay dhanka dowladda federaalka la saftaan, ayna ka hor yimaadaan qorshe walba uu Dani damacsan yahay. xitaa waa macquul in xildhibaanada Puntland ay villa Soomaaliya maalgeliso meeshana laga saaro Siciid Dani. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sababta aan u doonayn in uu la hadlo Puntland waxa ay tahay in maamul goboleedyada kale ee dalka iyaguna ay mari karaan wadadaasi, sidaasi darteedna uusan doonayn in uu isku furo waddo hadda xiran, balse haddii cadaadis la saaro Puntland ay kuwa kalena ku qoos qaadan karaan. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba in Siciid Dani uu aad ugu fududaaday go'aanka uu gaaray, kaas oo aan dan ugu jirin maamulkiisa. kulmiye show ayaad warkan kala socotaane markana aynu eegno sirta ka dambeysa ciidanka BSF-ta Puntland ee la geeyay Hobyo. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ciidamada BSF-ta Puntland ee dhawaan la geeyay degmada Hobyo, iyadoo baraha bulshada siyaabo kala duwan loo hadalhayay ciidamadan kuwaas oo ay tababartay dowladda Mareykanka. warar hore oo soo baxay ayaa sheegaya in Puntland ay ciidankan u soo dirtay si ay uga caawiyaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug howlgallada ka dhanka ah argagixisada. hase ahaatee waxaa hadda soo baxaya war aad uga duwan midaan. ciidamada oo qarashka ku baxa ay bixiso dowladda Mareykanka ayaa wixii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso dowladda Mareykanka waxay hoosgeysay dowladda federaalka Soomaaliya. amar ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ayaa la sheegay in ciidankaasi lagu geeyay Hobyo si ay kaalin uga qaataan howlgalka ka dhanka ah argagixisada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa amray in ciidankan ay tagaan Hobyo ayna caawiyaan ciidanka kale ee xoogga dalka maadaama gulufka ka dhanka ah al-shabaab uu halkaasi ka socdo. si la mid ah ciidanka Danab ayaa ciidanka BSF looga fadhiyaa in ay guulo waaweyn u keenaan. madaxweynaha Puntland ayaa isku dayay dadaal walba oo ciidamadaasi lagu baajin lahaa, hase ahaatee maadaama ay toos u hoos tagaan dowladda federaalka waxaa qasab noqotay inay amarka qaataan oo ay dhanka Hobyo aadaan. guud ahaan gobolada dalka waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamaya argagixisada al-shabaab, iyadoo dowladda madaxweyne Xasan Sheekhna ay ka go'an tahay in dalka laga ciribtiro argagixisada. muddo 5 sano ah oo aysan argagixisada wax dagaal ah kala kulmin dhanka dowladda ayaa hadda waxay wajahayaan duulaankii ugu xoogganaa oo xitaa dadka shacabka ah ku qaadeen, iyadoo degmooyin iyo deegaano badan laga qabsaday. howlgallada ugu culus ayaa la filayaa inay dhowaan sidoo kale ka bilowdaan gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, waxayna al-shabaab dareemayaan culays aad u xooggan, iyadoo la filayo in maalmaha soo aadan la maqlo warar kale oo cusub kuna saabsan jab loo geystay argagixisada. geesta kale argagixisada al-shabaab dhexdooda ayaa lagu soo waramayaa in uu ka jiro isfaham waa baahsan, xitaa ay gacanta iskula tageen, waxaana loo sababeynayaa culayskan la saaray. ugu dambeynna aynu eegno qorshaha cusub ee amniga Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo ballaaran oo lagu sugayo amniga caasimadda isla markaana looga xoreynayo argagixisada maadaama dalka uu ka socdo howlgal ballaaran oo al-shabaab ka dhana.
sida madaxweyne xasan sheekh oo shalay ka sheegay dibadbixi kacdoonka shacabka muqdisho ee lagu qabtay garoonka injineer yariisow. cid walba oo degan caasimadda waxaa waajib ka saaran yahay inay kaalin ka qaadato qorshaha dalka looga xoreynayo al-shabaab, gaar ahaan magaalada muqdisho oo mararka qaar inta ay kusoo dhuuntaan sameeya qaraxyo ama dilal qorsheysan. madaxweynaha ayaa u sheegay shacabka caasimadda in wixii maanta ka bilowda looga baahan yahay shacabku inay hay-adaha ammaanka kusoo wargeliyaan cid walba oo ay ka shakiyaan ama aanay garaneyn, sidoo kalena la wareysto qof walba oo aan aqoon loo lahayn. waxa uu sheegay in qofka markii la qabto aan loo geysanin xadgudub, balse meesha uu joogo lagu weydiin doono halka uu ka yimid iyo in ugu yaraan la helo cid aqoonsata, taas oo keenaysa in ay yaraadaan dadka wax u dhimaya amniga caasimadda. sidoo kale madaxweynaha ayaa ku dhaartay in tallaab adag laga qaadi doono saldhigga ama cid walba oo ka mid ah hay-adaha ammaanka oo inta shacabka warbixin usoo gudbiyaan haddana aan waxba ka qaban. dhanka kalena kulamo maalmahan u socday saraakiisha ammaanka muqdisho isugu jira booliis iyo nisa ayaa la isku raacay in la sameeyo howlgallo joogto ah. walow howlgallada mararka qaar ay dhibaato kasoo gaarta shacabka aan waxba galabsan, haddana hay-adaha ayaa isku raacay in taxadar laga muujiyo sida howlgalka loo sameynayo. inkastoo mararka qaar ay dhacaan falal wax u dhimaya amniga magaalada muqdisho, haddana waxaa soo hagaagaya amniga caasimadda wixii ka dambeeyey markii baraha kontaroolada qaarkood ee muqdisho ay la wareegtay hay-adda nisa. al-shabaab oo hadda dagaal culus ku socda ayaa isku dayeysa in ay carqaladeeyaan deegaanada nabdoon ee dalka oo ay ka fuliyaan dilal, qaraxyo ama qafaal intaba. daawade fadlan aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb, nagu soo biir oo nasoo fallow garay, muuqaalka noo share garay si uu dad badan u gaaro. mahadsanid garay si uu dad badan